gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor Jeeka Cismaan Ciye ayaa waxa uu munaasabad abaalmarino lagu gudoonsiinayo shaqaalihii ugu fiicnaa sanadkii tagay u qabtay dhammaanba shaqaale weynaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal maamulka iyo macallimiinta kala duwan ee dugsiyada dawladda munaasabadaasi oo ay goobjoog ahaayeen dhammaanba mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maamulka iyo macallimiinta dugsiyada kala duwan ee gobolka Awdal ayaa waxa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal gudoomiyaha iyo tiimka la shaqeeya ayaa u xulay dadkan inay noqdaan dadka la abaal mariyo ama dadkii ugu kartida fiicnayd nin walbana waa laga yaabaa maalinta isagu loo garto inuu hawshaasi gutay insha Allah taala waa la siin doonaa inta yar laakiin la bixinayo ama shahaado sharaf yar oo kooban waxa ka muhiimsan shaqada aynu u hayno bulshada iyo abaalkan Ilaahay kaga doonayno waxa laga yaabaa dadku marka xagga sharciga marka laga eego dad badan baa u fahansan subaxii markaan shaqo tagayno in adduunyo ka shaqeynaan Soomaa waxa la yiri qofku camalkiisa hadduu xalaashado daacadna uu ka noqdo camalkan uu shaqeynaya haba noqdo kii uu caruurtiisa ku masruufayay waxay galaysaa baabka cibaadada soo saas ma dhanka kale qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulayaashii ka soo qayb galay munaasabadaasi oo iyaguna halkaasi ka hadlay munaasabad aad iyo aad markaa runtii loogu farxo waana wax qabad fiican oo markaa dadka dhiirigelin ku siinaysan shaqadooda sii wataan runtii waxa muhiim ah qofka bini'aadamku marka uu shaqo qabto shaqada mugti maxaa si loogu talagalay hadii uu qabto in lagu abaal mariyaa waxay keentaa inuu markaa si fiican shaqada kale uu sii guto oo markaa kor u sii socdo maadaama anagu nahay baxdii shaqaalihii wasaaradda waxbarashada waxaan ugu mahad celinaynaa horta Ilaahay marka horeysa marka xigtana gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdal iyo gudoomiye ku-xigeenka xafladan aad iyo aad loogu dhiirigelinayo maamulayaasha iyo shaqaalaha ugu activity-ga badnaa sanadkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan ka mid ahay oo sanadkan lagu soo marti qaaday waxaan jecelahay in halka laga aan ka sii wadno hawsha runtii waa wax aad loogu farxo runtii waxayna runtii dhiirigelin u tahay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayay u tahay kal hore asana kala loo qabtay maanta tii kal hore runtii aad bay uga ballaaran tahay sanadba sanad ka dambeysana waxay ku fiican tahay runtii in dhiirigelintu waxbarashada wax weyn ayay ka taraysaa waxaana runtii loo qabanayaa dhiirigelinta waxa weeye si loogu soo dhiirado dadka kartida badan leh ee hawsha noocaas qabtay in inta kalena runtii ku soo dhiirata runtii waa wax aad u fiican ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Professor Jeeka Cismaan Ciye waxaan marlaad aad uga mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ama macallin ahaado ama maamul ahaado ama kormeer ahaado dhammaantood waxaan uga mahad celinayaa sidii wanaagsanayd ee sanad dugsiyeedkii 2019 iyo ilaa imkaan ku jirno 2020 ah sidii wanaagsanayd markaa shaqada u soo guteen dhammaantood uga mahad celinayaa waxaana la ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin ku daro waxaynu isku nimidnay sidoo ka dhawaajay markaa gudoomiye ku-xigeenka sharaxe aad faarax inaynu abaal marino inaan maxaa ahaay dhammaan shaqaalihii ama maamulayaashii ama kormeerayaashii la yiri waa kuwa ugu fiicnaa marka laga yimaado muddadii hore abaalmarinta bixinay sanad dugsiyeedka qaybtiisii dambe inaynu markaa abaal marino waynu ogno de shaqaalaheenu kunbay gaariyaan kunkaasi de lama wada oran karo de waxbaynu gaarsiinaa laakiin waxaan leenahay cidii markay la soo qiimeeyay activity-ga ama shaqadooda leeyahay marka labada qof ka hayno waad mahadsantahay jazakallahu khairan oonala si guud shaqada de waxaan u shaqeynaa waa team waynu wada shaqeynaa dhamaanteen ama qofka shaqada ama maamulaha la siinay leenahay maanta waad wanaagsantahay jazakallahu khairan miinis kelidii wax ma qaban laakiin waxa la qabtay dhamaan shaqaalii la shaqeynayay ama ilaaliya ha noqdo ama nadiifsa ha noqoto macallin ha noqdo dhamaantood shaqada way la qabteen waxaynu abaalmarintaas u kala qaybsan tahay marka laga yimaado 3 biloodkii dambe kii hore aynu bixnay ma kan kale waa cidii ugu wanaagsaneed iyo cidii aan isniri shaqada marka wasaaradda kunka qof la eego
cidda ugu shaqada wanaagsanayd ee shaqada ama ahayd ijiinka wasaaradda inaan idhaahno aad baad u mahadsan tahay iyo maamulihii aan isnidhi waa maamulaha ugu waxqabadka badan leh marka maamulo waxaan siinayna minis iskuulkaasaan dee wax siinay dhammaan shaqaalaha iskuulkaas waa ka wada mid waxaa kaloo inoogu jirta shaqaalaha hoosaadka waxaanu soo eegnay dhammaan waashmaanada ama ilaaliyaasha dugsiyada ilaaliyaan isnidhi si wanaagsan buu ama lexejeclo fara badan baa ku jirta uu ilaaliyaa iskuulka isna ka mid noqdo iyo gabadhii aan isnidhi marka xagga nadaafadda iskuullada iyo xataa wasaaradda la eegay gabadhaan isnidhi waa gabadha ugu lexejeclada badan leh nadaafadda diyaar u ah inay yadna ka mid noqoto inaan dadkaynu abaal marinayno sababtoo ah waxaan dhammaanteen wada nahay shaqaale haddana qof walba inuu shaqada u hayaanu ugu mahadnaqno aynu ku ogaanaana waa mid iyadna waajiba